mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa taageerayaasha kala qayb galay ololaha isu soo baxa taageerayaasha kala duwan ee xisbigaasi waxaana uu halkaasi markii uu soo gaaray uu salaamay dadkii taageerayaasha ah ee isugu yimid goobtaasi. intaasi kadib waxaa fagaaraha kala hadlay dadka isugu yimi musharaxiinta xisbigaasi ka sharaxan iyo maamulka xisbiga mucaaridka ah ee wadani ee gobolka Saaxil uga mahadnaqay sida ay isugu soo bixeen ay u muujiyeen cudurda taageere ee xisbigaasi. in badan baa la oran jiray berber ciyaalkeeda cuntaa berbera taakul ciyaalaha wa turabbi ciyaalanaas waxaan filayaa in dadkeedu sidii laynoo yaqaanay imika aanay duba culi doonan dadka kalena ay rabayn doonto dadka u cararaya golaha wakiilada inaan anigu maanta ugu daaweyn meel waqtiyada aan garanayo berberi sida ay ahayd maanta boqolkiiba boqol maalintii aan u ganacsaday ka wanaagsanay berbere markii waji dooni halkan hortiina ahayd ee bakiishadu halkan ahayd ee doonbaradu ahayd insha Allah waxaan ballan qaadayaa inaan si adag ula xisaabtamo isla markaana aan dabar ku noqdo arrin kasta oo aan u arko inaanu bulshada u danahayn waxa aan maadaama aan ahay murashax golaha wakiilada sumadayduna ay tahay wanka macashi weyn ee halka idinka soo eegaya anigoo ku hadli doona afka dhalinyarada gobolka Saaxil u matali doona golaha wakiilada u matali doona guud ahaan Somaliland cid wal oo xagga sharciyada u xoqonaysaba Somaliland ka socda hormarka noqda waxaan idin leeyahay fartiinu yaydin ciilin waxa aad ku dooranaysaan waa inaad ka fakartaan waxaan idin sheegayaa inaydinaan ogolaan in 5 sano soo socota ay la mid noqoto shantii aynu soo dhaafnay Saaxilay waad is ogtahay hoos baad is ogtahay xaqdarrada ka socotaad ogtahay dulmiga socdaad ogtahay waxa maanta aad haysataa fursad aad dulmiga iskaga qaado maanta gacantaada ku jirtaa waxaan leeyahay anigu waxaan ahay aadan xuseen yuusuf aadan dheere waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka qasaantaydu waa 301 dhammaan reer berbera oonan u magac tirinayn baan leeyahay codka ku hubsada 301 sidaa darteed waxaan doonaynaa in xisbiga wadani dhalinyarada ka sharaxan la siiyo codka inta u fara badan dadka waxaa laga dhaadhiciyaa xisbiga wadani cid baa iska leh xisbiga waxaa lagu shubanayaa codkaaga waad waayeysaa war wax ka jira ma jiraan horta luuran noqon maayo liqana noqon maayo laqaabtana noqon maayo maama carabiya baa jirta oo tidhaahda niil waa masarna waa niil Somaliland waa berberna waa Somaliland dadkeedina waa kuwa tuban ee meel laga qudbadeeyo iyo meel ay istaagaan iyo meel ay fadhiistaan ay waayeen waxaa yeelaysaan oo aanu idinkula dardaarmaynaa inaydaan dadkii dhulka baabi'iyey ee khayryada u samayn waayey ee waxba u qaban waayey inaydaan dib u dooran waxaan leeyahay ina dable iyo ina cidina waxaan leeyahay keligiin maayarra ka noqon maysaan berbere waa la idinkula tartamayaaye rag wax u reeba baan idin leeyahay idinkana waxaan idin leeyahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland markaynu dooranaynay wuxuu yidhi fartiina dhexda ka qaniini doontaan waanaynu ka qaniinay anigu waxaan idin leeyahay fartiina ku najixi doontaan waana ku najixi doontaane waa 305 reer berbera waanu iskadalaynaa muddadii aan joognay waanu iskadalaynaa dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa bulshada reer berbera waxaan idinka codsanaynaa inaad maanta fartiina noogu hilisaan saan barri idinku hilinno waa xisbigii kulmiye Titanic buu noqday markabkii Titanic ninkii ka degi karo dhaqso uga deg wassalaamu calaykum
intaasi kadib waxaa halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta sarsare ee wafdiga ku wehelinayay socdaalka guddoomiyaha guud ee xisbigaasi. guddoomiyaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay taageerayaasha kulana dardaarmay inay soo saaraan musharaxiinta ka sharaxan xisbigaasi oo uu tilmaamay inay soo xuleen da'yar aqoon leh wax weyn ka bedeli doonta magaalada berbera. xisbigu wuxuu sameeyey dadaal badan inuu soo xulo musharaxiin aqoonyahana waayo arag khibradeed shaqo leh oo dhallinyaro u badan. waxaannu ku kalsoonahay haddaanu nahay xisbiga waddani inay noqon doonaan adeegayaal u adeega shacbiga gobolka saaxib. waxaanu idinka codsanaynaa inaad si weyn u dadaashaan codkana siisaan iyadoo xildhibaanadu ii siman yihiin. waxaan si gaara u xusayaa